أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت وأربعة طبنك محرم كن أفر بقول صدح يا أفرتنك هجرة سدادي طبنك أغسطو لبو كن كوي لباتنك ميلادك وحان جوغا مكة المكرمة تنوى قيب طلبات سيدو أقود بيي رسالة نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا قشو حديثك وحيك عائشة وحي تري مركاسو لسو نقضي وأنو قرآن كان لغو سو دجيي يوحي دعيبا أيضو دقيقة لبدي سقرب ودحيية دباحينيو وجددنا أي تهي إسوى صلى الله عليه وآله وسلم وذا جرينية أو قريرية oo khadiija guriga uu soo galay uga warramay wixii dhacay kadibna sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu yiri iduuduuba zammiluni oo maro ama buste igu duuduuba markaasaa la duuduubay ilaa ay cabsidu ka tagtay markaasuu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaa khadiijatu maali oo macnaheedu yahay khadiijoy waa maxay waxa ii sugnaaday si ay iigu sugnaato waxa ii sugnaaday markaasuu khabarka wixii dhacay u sheegay kadibna wuxuu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ku yiri qad khashaytu ala nafsi oo macnaheedu yahay naftaydan u baqay khadiija waxay tiri sidaas ha oran ama ha cabsan أبشر وبشاريسو والله إنو سن إلهي أبدكيس كفديحينين محايا لي أذوقو رحمك قرابة أياد حيرسة حق مالك حق أقومدة وأذيقوذا بوقشدوذا سلامدوذا يوحي لمد أبا رنتادنا كو هذا شاه أوليس بين مشيقين لقو من تهمين نمن مدى هرتيدا siduu abu sufyaan oo markaas gaal cadowgiisa ah uu boqorka roomaanka hiraqal hortiisa uga qiray runlownimaduna waa sifooyinka ugu sharaf badan oo uu qofku yeesho waxaadna culayska ka qaadaa oo aad ka xambaartaa kuwa taagta daran sida ciyaalka agoonta ah iyo kuwa sidoodaba u taagta daran muslim wuxuu ku daray inay tiri waxaad dadkana siisaa waxayan khayrkaa ka helayn martidana cuntadaad inta samaysid siisaa iyo meeluu ku hoydaba dadkana waxaad ka taakulaysaa dhacdooyinka ku yimaada khadiija hadalkeedaasu wuxuu caddaynayaa ballaarnaanta caqligeeda iyo fiqigeeda ayadoo koobtay dhammaan anwaacda makaarimta akhlaaqda ayadoo uu biyo shubadka hadalkeedu yahay haddaad intaasoo wanaag a leedahay waxaad kahato kugu dhicmayaan taasoo daliil u ah inay wanaagga akhlaaqdu celiso waxaa la kahdo ayna sabab u tahay nabadgelidda khadiija iyo caddaas markaasee khadiija siduu azarqaani uga soo wariyey sulaymaan ataymiyi iyo muusa bin cuqba soo baxday oo ay u timid nin addoon ah oo uu lahaa cutba bin rabiica addoonkaasu wuxuu ahaa kirishtaan wuxuuna ka mid ahaa dadka degmada niinawa waa magaalada nebi yuunus calayhi salaam oo ku taalla waqooyiga ciraaq magaciisuna ahaa caddaas markaasay waxay ku tiri ilaahay ayaan ku xusuusinayaaye ee waa ilaa inaad ii sheegtid inaad u cilmi leedihiin jibriil markaasuu caddaas wuxuu yidhi quduusun sayidda haweenka qurayshay muxuu yahay arrinka lagu xusayo arligan uu dadkeedu yahay dad asnaamta caabuda markaasay waxay tidhi
ii sheeg waxaad ka og tahay. wuxuu yidhi jibriil waa amiinka dhex socda ilaahay iyo ambiyada, waana saaxiibka u imaan jiray muuse iyo ciise. markaasay caddaas ka soo gadoontay oo ay gurigeeda ku soo laabatay. markaasay nebiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam la baxday oo ay ula tagtay waraqa bin nowfal. nebiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam iyo waraqa bin nowfal. waraqa bin nowfal bin asad bin cabdulcuza bin qusay sidaan u soo aragnay wuxuu ahaa nin ina adeerkeeda laxmiga ah. khadiija bintu khuwaylid bin asad bin cabdulcuza bin qusay wuxuuna ahaa nin caabudidda asnaamta ka tegey oo kirishtaan noqday islaamka hortiisa. wuxuuna ahaa nin dhigidda farta carabiga yaqaana. markaasuu wuxuu farta carabiga ku dhigi jiray kitaabka injiilka, ugana dhigi jiray intuu ilaahay doono inuu dhigo. injiilku wuxuu ku dhignaa afka saryaaniga oo ah lahjad carabiga ka mid ah, waana lahjaduu ku hadli jiray nebi ciise calayhi salaam. towraaduna afka carabiga. marka waraqa siduu annawowi u yiri iyo ibnu xajarba wuxuu kutubadaas ku dhigi jiray afafka carabiga iyo cibrigaba. af cibriguna waa afkay waa lahjad carabiga ka mid ah oo ay yahuuddu ku hadasho. alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi waxaan waraqa ugu sifeeyey inuu injiilka dhigi jiray oo aan u oran jir oo aan u oran waayey wuu xifdin jiray ayadoo xifdinta towraadda iyo injiilkuba ayan ahayn kuwa la sahlay sida loo sahlay xifdinta qur-aanka oo ummaddan lagu gooni yeelay, taasoo u sabab ah in sifadeeda waa ummaddaane ay ka mid tahay anaajiiluhaa fii suduurihaa oo ah kutubadoodu laabahooda ayay ku sitaan oo qur-aanka ayay qalbigooda ku sitaan ayagoo korka ka haya oo xifdiyey. waa intaas warka ibnu xajar. waraqa wuxuu ahaa oday da' weyn oo indhabeelay. markaasay khadiija waxay ku tiri ina adeerow bal dhegayso wiilka walaalkaa dhalay. oo aabbaha saddexaad ee waraqa waa cabdulcuza, waana walaalka la dhashay aabbaha afaraad ee nebi maxamed sala allahu calayhi wacala alihi wasalam ee cabdumanaaf bin qusay. markaasuu waraqa wuxuu yidhi wiilka walaalkayow maxaad aragtay? markaasuu nebigu sala allahu calayhi wacala alihi wasalam uga warramay wuxuu arkay oo uu la kulmay. markaasuu waraqa wuxuu yidhi midkaani waana malag jibriil wa annaamuusu oo macnaheedu yahay midka u saaxiibka ah sirta oo ah waxyiga, waana midka muuse ku soo degay. wuxuuna ciise u oran waayey isagoo kirishtaan ahaa rumaynta uu risaalada nebi moxamed sal allahu alayh wasalam rumaynayo, ayadoo ku soo degidda jibriil ee muuse ay kirishtaanka yuhuudduba isku waafaqsan yihiin. yuhuudda intooda badanse ay nebinimada ciise inkirayaan. maxaan u ahaan waayey ayuu leeyahay waraqa nin dhallinyaro ah muddada nebinimada waa nebinimada nebi moxamed sal allahu alayh waala alihi wasalam. maxaan u noolaan waayey markay dadkaagu dalkaaga kaa saarayaan? markaasuu rasuulka ilaahi sal allahu alayhi waala alihi wasalam wuxuu yidhi awa mukhrijiyahum, oo macnaheedu yahay oo miyay waddankayga iga saarayaan? oo waxaa nebiga sal allahu alayhi waala alihi wasalam la weynaatay inay dadkiisu waddankiisa oo xaramka ilaahay ee maka almukarama iyo beledka aabbihiis ismaaciil ka saarayaan sabab la'aan. asuhayli wuxuu yidhi ka tegidda waddanka nafta way ku adag tahay, taasoo ku muuqanaysa
naxdinta iyo cabsida taas laga cabsado oo kama uusan nixin sala allahu calayhi waalihi wasalam markuu Waraqa u sheegay inay dhibi doonaan ayna beenin doonaan sida xadiidka mursalka ah ee Cubayd bin Umayr wariyey inuu Waraqa ku yiri waa lagu beeninayaa waana lagu dhibaataynayaa waana lagula dagaalamayaa markaasuu Waraqa wuxuu ku yiri haa oo waa lagu saarayaa horena ninna lama uusan imaan waxaad la timid oo kale waa ilaa midka la colaadiyey haddaan gaarana maalintay diintaadu faafayso waxaan kuu hiilinayaa oo kuugu gargaarayaa hiilo iyo gargaar weyn oo xoog leh Waraqa kulankaas kadib wax badan ba ma nooleyn ee wuu dhintay taariikhda Waraqa hore ayaan uga soo waranay oo ayna soo martay dhambalidda laabtiisa shariifka ah sallallahu calayhi wacala aalihi wasalam nabi maxamed sallallahu calayhi wacala aalihi wasalam waxaa laabtiisa la dilaaciyey oo la sii daahiriyey 4 jeer oo kala ah kow intuu caruurta ahaa oo uu ku sugnaa aqalka Xaliima Asacdiya oo 4 jir uu ahaa 2 markuu 10 jirsaday ama meelahaas 3 markuu 40 jirsaday oo waxyiga loo keenay 4 habeenkii la dheelmiyey marka saddexaad ee laabtiisa shariifka ah la dilaaciyey qalbigiisana sallallahu calayhi wa alihi wasallam la soo bixiyey waa markuu 40 jirsaday oo uu Jibriil calayhi salaam ugu yimid qaaru Xiraa una waxyiga u keenay Jibriil iyo Mikaa'il ayaa laabtiisa sallallahu calayhi wa alihi wasallam dhambalay kadibna uu Jibriil ku yiri iqra ilaa 5 aayadood oo ugu horeeya suuratul Alaq xadiidka oo ay ka wariyeen Caaisha Abu Nucaym Al-Bayhaqi waxaan isagoo tifaftiran ku soo warinay kitaabkeena agoonka sallallahu calayhi wa alihi wasallam oo ah kitaabka 9aad ee taxanahan boggiisa 8 iyo 30 joogsiga waxyiga Caaisha waxay tiri markaasuu waxyigu ka joogsaday nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasallam oo uusan Jibriil kadib markuu nabinimada xagga Ilaahay uga keenay uusan dib ugu soo noqon in muddo ah markaasuu nabigu sallallahu calayhi wa alihi wasallam aad uga tiiraanyooday imaansho la'aanta Jibriil sidana soo gaartay ilaa heer uu damcay inuu inta tafo buuraha ugu dheer fiidooda iska soo tuuro oo uu ka soo dhaco markaas ma uusan jirin sharci xagga Ilaahay ka yimid oo taas diidaya markaasuu mar kasta oo fiida buur istaago si uu isaga soo tuuro isagoo ka baqaya inuu waxyigu uga joogsaday sabab isaga ka timid daraadeed oo uu ka baqay inuu joogsigiisaas markaas ciqaab xagga rabbigiisa uga timid tahay ayuu Jibriil hortiisa isku muujiyaa oo nabiguna sallallahu calayhi wasallam arkaa markaasuu wuxuu ku yiraahdaa Muxammadow run ahaan adigu waxaa tahay rasuulka Ilaahay markaasuu taas qalbigiisu sallallahu calayhi wa alihi wasallam ku xasilaa oo garaacidii badnayd ka degtaa ay naftiisuna degtaa oo markaas gurigiisa dib ugu laabtaa hadday muddada waxyigu ka maqan yahay dheeraato sidaas oo kale ayuu sallallahu calayhi wa alihi wasallam buuraha u aadaa markaasuu markuu buurta fiideeda istaago ayuu Jibriil istusaa oo sidii oo kale ku yiraahdaa Al-Bukhari Ibn Abbas wuxuu ka wariyey inuu yiri falaqu as-subhi wa iftiinka qoraxda maalinta dhexdeeda ah iyo iftiinka dayaxa oo habeenka dhexdiisa ah salaamida dhagaxyada iyo geedaha ibn Isxaaq wuxuu yiri
rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wacala alihi wasalam markuu ilaahay doonay inuu karaameeyo nebinimadana uu u bilaabo waxay ahayd in markuu xaajadiisa u baxo oo uu musqul aado wuu fogaan jiray ilaa uu guryaha maka ka libro uuna buuraha maka dhexdooda galo iyo uurka dooxooyinkeeda markaasuusan rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wacala alihi wasalam mari jirin dhagax ama geed ee waa kan ilaa ku yidhaahda assalaamu calayka yaa rasuula allaahi wuxuu yidhi markaasuu rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wacala alihi wasalam hareerihiisa fiiriyaa oo midigtiisa iyo bidixdiisa iyo gadaashiisa markaasuusan arag waxaan geed iyo dhagax ahayn xaaladdaas ayuu rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wacala alihi wasalam ku sugnaa isagoo arkaya oo maqlaya intuu ilaahay doono inuu sidaas ahaado kadibna waxaa u yimid jibriil una keenay wuxuu uga keenay karaamada ilaahay isagoo xiraa oo ku jira bisha ramadaan dhexdeeda waxaa kaloo xadiidka wariyey atabari oo ku wariyey kitaabkiisa taariikhda mujalladka koowaad bogga 529 kana wariyey bara bintu abi najraal asuhayli wuxuu yidhi ibnu isxaaq wuxuu xusay in waxay nebinimadu ku bilaabatay ay ka mid ahayd inuusan mari jirin dhagax iyo geed toona ee waa kan ilaa yidhaahda assalaamu calayka yaa rasuula allahi kutubada atirmidi iyo muslimba waxaa ku xusan inuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wacala alihi wasalam yidhi innii la acrifu xajaran bimakkata kaana yusallimu calaya qabla an yunzila calaya xadiidka macnihiisu waxaa weeye anigu waxaan aqaanaa dhagax maka dhexdeeda ah oo islaami jiray ka hor intaan waxyiga la igu soo dejin waxaa wariyey saxiixu muslim waana xadiidka 2277 ee ah xadiidka labaad ee kitaabu alfadaa'ili waxaa kaloo wariyey axmed mujalladka 5 bogga 9 iyo atabraani mujalladka 1 bogga 210 kutubada qaarkoodna waxay intaas ku ziyaado ah oo ku dareen inuu dhagaxaasi salaami jiray sala allahu calayhi wasalam uu yahay alxajaru alaswad dhagax madow oo kacbada ku jira intaasuu ku egyahay warka asuhayli saalim maxamed jamaal oo ahaan jiray madaxa mutawafiinta dowladaha carabta ee maka almukarama kitaabkiisa daliilu lxaaji walmacmuuri boggiisa 113 ku xusay inay daarta ummu almu'miniina khadiija ayna caruurta nebiga sal allahu alayh wasalam ugu dhashay ay dhexdiisa ku dhasheen haddana inta la dumiyey dhulkiisa uu masjidu alxaraami ka mid yahay oo la oran jiray dariiquu ku ooli jiray ziqaaqu alxajari ahna waddada dhagaxa looguna bixiyey inuu halkaasi ooli jiray dhagax ka mid ahaa dhagaxda nebiga sal allahu alayhi wala alihi wasalam salaami jirtay gurigaas hooyada mu'miniinta ay caruurta ugu dhashay nebi maxamed sal allahu alayhi wala alihi wasalam lixdoodaba boqor fahadka sacuudiga iyo muftigiisa camoolaha ahaa ibnu baaz waxay ka dhigeen musqul lagu xaaro oo lagu kaadsho ha isku gelin ictikaafkiisa sala allahu calayhi wala alihi wasalam ee xiraa'u
ibnu isxaaq wuxuu yidhi waxaa ii warramay wahb bin kaysaan mowlaha qoyska azubayr wuxuuna yidhi waxaan maqlay cabdullaahi ibnu zubayr oo u warramaya cubayd bin cumayr bin qataada alleythi oo leh cubaydow noo waran sidee bay ahayd waxay ku bilaabatay nebinimada rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wala alih wasalam markuu u yimid jibriil calayhi salaam wuxuu yidhi markaasuu cubayd wuxuu yidhi aniguna aan goobjoog ahay isagoona uu cabdullaahi ibnu zubayr u warramayo iyo dadka la jooga wuxuuna yidhi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wala alih wasalam wuxuu ahaa kan sanad walba bil ku ictikaafi jiray oo ku nagaadi jiray xiraa taasoo ka mid ahayd attaxanuthu quraysh oo ah ka fogaanshaha dembiga ibnu hishaam wuxuu yidhi carabtu waxay tidhaahdaa attaxanuthu iyo attaxanufu ujeeddaduna waxaa weeye alxanafiya markaasay tha'da saddexda dhibcood korka ku leh fa dhibic korka ku leh ku bedelaan ibnu hishaam wuxuu yidhi waxaa ii warramay abuu cubayda oo ii sheegay inay carabtu tiraahdo humma meeshay ka odhan lahayd humma ayagoo thacda fa ku bedela asuhayli wuxuu yidhi attaxanuthu wuxuu ka yimid alxinthu oo ah waxa la qaado oo culus marka attaxanuthu waa atabararu macnaheeduna uu yahay ka bixidda iyo iska rididda dembiga asuhayli wuxuu yidhi hadalkiisa ah waana hadalka cubayd ee xadiidka ibnu isxaaq ee kore yujaawiru fi xiraa'u aljiwaaru waxay la micno tahay almujaawaratu waana ictikaafka oo ah ku nagaadidda oo farqi uma dhexeeyo aljawaari iyo alictikaafi hal weji oo keli ah mooye ahna inuusan ictikaafku ku ahaanayn masjid gudihiisa mooye jawaarkuna uu masjidka dabadiisa ku ahaanayo sidaas waxaa yidhi ibnu cabdu albar waa ninka alisticaabu leh oo taas daraaddeed ayuusan jiwaarkiisa sala allahu calayhi wala alih wasalam ee xiraaw ictikaaf ugu magacaabin ayadoosan xiraa masjid ahayn uuse buuraha xaramka ka mid yahay waa intaas warka asuhayli ibnu isxaaq wuxuu yidhi wahab bin kaysaan ayaa ii warramay wuxuuna yidhi cubayd bin cumayr wuxuu yidhi markaasuu rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wala alih wasalam wuxuu ahaa midka bil sanad walba qaaru xiraa ku ictikaafa markaasuu inta masaakiinta ugu timaada cuno siiya markaasuu markuu ictikaafka bishaas dhammaysto soo gadoomaa markuu ictikaafkiisa ka soo gadoomo sala allahu calayhi wala alih wasalam waxaa ugu horeeya oo uu ka bilaabi jiray waxay ahayd inuu tegi jiray kacbada ka hor intuusan gurigiisa gelin markaasuu 7 goor ku dawaafi jiray ama intuu ilaahay ka doono inuu ku dawaafo markaas kadib ayuu sala allahu calayhi wala alih wasalam gurigiisa u laabtaa markaasay markay ahayd bishuu ilaahay tacaala doonay inuu dhexdeeda ku karaameeyo oo ka mid ahayd sanadkuu ilaahay tacaala soo diray dhexdeeda bishaasna waxay ahayd bisha ramadaan ayuu xiraa aaday oo uu ku ictikaafay ka soo degidda buurta markuu jibriil nabiga sala allahu calayhi wala alih wasalam isagoo hogga xiraa'u ee jabalunuur ku jira qur-aanka iyo nebinimada iyo rasuulnimada u keenay kulankaas kadib nebigu sala allahu calayhi wala alih wasalam wuu ka soo baxay
hoggaas wuxuuna ka soo degay buurta. intuu buurta ka soo degayeyna sal allahu calayhi wala alihi wasalam ayuu jibriil mar kale arkay. ibnu isxaaq wuxuu wariyey inuu nabigu sal allahu calayhi wala alihi wasalam yidhi fakharajtu xataa idaa kuntu fii wasطin min aljabali samictu sawtan min alsamaa'i yaquulu yaa muxammadu anta rasuulu اllahi wa ana jibriilu qaala فرفعت رأسي إلى السماء أنظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنا رسول الله أنت رسول الله وأنا جبريل قال فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فزلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا إليها فقالت يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي. ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت أبشر يا ابن عم واثبت وأثبت فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عمها، وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل. حديثك معنيه سوحاوي. markaasaan soo baxay oo aan hoos u soo daadegay. markaan marayo buurta bartamaheeda ayaan cod samada ka yeeraya maqlay oo leh muxamedow adigu waxaad tahay rasuulka ilaahay aniguna waxaan ahay jibriil. wuxuu yidhi markaasaan madaxayga samada kor ugu qaaday anigoo dhuganaya mase waaba jibriil oo suuradda nin leh oo ay labadiisa lucagood ku safan yihiin samada dhexdeeda oo leh muxamedow adigu waxaad tahay rasuulka ilaahay aniguna waxaan ahay jibriil. wuxuu yidhi markaasaan istaagay anigoo fiirinaya anigoo aan horayna u soconayn dibna u noqonayn oo dib u dhaqaaqayn. markaasaanan dhinacna u jeesan oo aafaaqda ka mid ah ee waa ilaa anigoo arka isagoo sidaas ah. markaasaan sideedaas u taagnaa anigoo aan xagga hortaydana u soconayn xagga gadaasheedana u noqonayn. sidaas ayaan ahaa ilaa ay khadiija rususheeda oo ah dad isaga sala allahu calayhi wala alihi wasalam raadinaya u soo dirto baadigoobkayga. markaasay maka dusheeda gaareen kadibna markay soo waayeen sala allahu calayhi wala alihi wasalam ayada dib ugu laabteen. intaasoo idilna anigu meeshaydii ayada ahayd ayaan taaganahay. kadibna jibriil wuu iga gadoomay markaasaan aniguna soo gadoomay anigoo ehelkayga xaaskayga u soo laabtay. markaasaan khadiija
u imid oo ambowdadeeda agteeda fadhiistay kuna dhowaaday. markaasay waxay tidhi alqaasim aabbihiisow xaggee baad jirtay oo wallaahi rusushayda aan raadintaada u diray oo maka ayay kaa raadiyeen kadibna ay ii soo noqdeen ayagoo ku soo waayey. kadibna waxaan oga warramay waxaan arkay. markaasay waxay tidhi bishaaro in adeerkayow oo sugnow, waxaan ku dhaartay midkay khadiija nafteedu gacantiisa ku jirto, waxaan anigu rajaynayaa inaad adigu nebiga ummaddan tahay. markaasay intay istaagtay oo ay dharkeeda si adag u xiratay ayay waxay aaday waraqa bin nawfal bin asad bin cabdilcuza oo ina adeerkeed ah. waraqa horay wuxuu u galay diinta nasaarada, kutubadana wuu akhristay, wuxuuna cilmiga ka qaatay ehlu towraadda iyo ehlu injiilka. markaasay u sheegtay wuxuu rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waalihi wasalam ayada u sheegay inuu arkay oo u maqlay. markaasuu waraqa bin nawfal wuxuu yidhi quduusun quduusun, waxaan ku dhaartay midkay waraqa gacantiisa naftiisu gacantiisa ku jirto ee haddaad khadiijo waxaad ii sheegtay ay run yihiin, hadday khadiija aad ii sheegtay ay run yihiin, waxaa u yimid annaamuusu alakbaru, midka u imaan jiray muuse, isaguna waa nebiga ummaddan. marka waxaad ku tidhaahdaa sugnow. markaasay khadiija rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam u soo noqotay una sheegtay warkuu waraqa bin nawfal yidhi. kadib rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu ku noqday hogga xiraaw si uu u soo kaamisho oo u soo dhammaystirto bishuu halkaas ku ictikaafi jiray. markuu rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waalihi wasalam ictikaafkiisa bisha ku sinnaa dhammaystay uuna soo gadoomay ayuu wuxuu yeelay siduu yeeli jiray oo kale, oo wuxuu kacbada ka bilaabay oo uu ku dawaafay. markaasuu isagoo sala allahu calayhi wasalam kacbada ku dawaafaya ayuu wuxuu la kulmay waraqa bin nawfal oo isaguna kacbada ku dawaafaya. markaasuu waraqa wuxuu ku yidhi wiilka walaalkayow ii sheeg waxaad aragtay iyo waxaad maqashay. markaasuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam u sheegay. markaasuu waraqa wuxuu ku yidhi waxaan ku dhaartay midkay waraqa naftiisu gacantiisa ku jirto, adigu waxaa tahay nebiga ummaddan, waxaana kuu yimid annaamuusu alakbar, isla kii muuse u yimid. waana lagu beenin doonaa, waana lagu dhibaatayn doonaa, dalkaagana oo maka ah waa lagaa saari doonaa, waana lagula dagaalami doonaa. haddaan aniguna maalintaas gaarana waxaan ilaahay u gargaarayaa gargaar uu og yahay. intaas kadibna intuu madaxiisa u dhowaaday ayuu wuxuu nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ka dhunkaday wejiga. kadib rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam gurigiisa ayuu u gadoomay. waxaa kaloo xadiidka wariyey albukhaari, waana midka 6,982 iyo muslim oo ah midka 252 ee kitaabka iimaanka. khadiija iyo jibriil. ibnu isxaaq wuxuu yidhi waxaa la ii wariyey inay khadiija allaha raalli ka noqdee rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam ku tiri ina adeerow ma kartaa inaad ii sheegtid saaxiibkaagan
kuu yimaado markuu kuu yimaado wuxuu sala allahu calayhi waalihi wasalam yidhi nacam oo haa ah. waxay tidhi marka goortuu kuu yimaado ii sheeg. markaasuu jibriil calayhi salaam u yimid siduu yeeli jiray si la mid ah. markaasuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu khadiijo ku yidhi yaa khadiija haadaa jibriilu qad jaa'anii. xadiidka macnihiisu waxaa weeye khadiijooy jibriil waa kana oo uu ii yimid. waxay tidhi ina adeerow istaag oo bowdadeyda bidix ku kor fariiso. wuxuu yidhi markaasuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam istaagay oo uu bowdadeeda bidix ku kor fariistay. waxay tidhi ma aragtaa waa jibriile. wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam nacam oo ah haa. waxay tidhi soo wareego bowdadeeda midig ku kor fariiso. waxay tidhi markaasuu soo wareegay oo uu bowdadeeda midig ku kor fariistay. markaase waxay tidhi ma aragtaa waa jibriile. wuxuu sala allahu calayhi wasalam yidhi nacam oo ahaa. waxay tidhi soo wareegoo dhabtayda soo dhex fariiso. markaasuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ku soo wareegay oo dhabtayda soo dhex fariistay. markaase waxay tidhi ma aragtaa waa jibriile. wuxuu sala allahu calayhi waalihi wasalam yidhi nacam oo ahaa. markaasay iska fayday oo iska dhigtay khimaarkeeda oo ah hagoogta madaxa iyo qaarka sare u saarnayd, iyadoo uu rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi waalihi wasalam dhabteeda dhex fadhiyo. kadibna waxay tidhi ma aragtaa waa jibriile. wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam laa oo ah maya. waxay tidhi in adeerkayow sugnow bishaaraysana oo wallaahi isagu waa malag oo kani shaydaan ma uusan aha. ibnu isxaaq wuxuu yidhi waxaan u sheegay xadiidkan cabdullaahi bin xasan. markaasuu wuxuu yidhi waxaan maqlay hooyaday faatima bintu xusein oo xadiidkan khadiijo ka warinaysa. waxaanse maqlay ayadoo leh waxay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waalihi wasalam gelisay ayada lafteeda iyo cambuurkeeda dhexdooda. markaasuu jibriil markaas ka tegey. markaasay waxay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waalihi wasalam ku tiri kani waa malag mana uusan aha shaydaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaad u jeedaa masjid alxaraam. maanta waa arbaco 29 jamaadul thaani 1440 hijrada 6 maarso 2019 miilaadiga. waxaad dhinaca bidixdaha kore uga jeedaa baabulmarwa ee masjid alxaraam. gurigaas aad u jeeda meeshaas aad u jeedana ayaan tegi doonaa haddii aad gurigaas hurdiga ah waa guriguu cabdullaahi bin cabdilmutalib calayhi salaamu lahaa oo uu nebi maxamed ku dhashay. guriga cadow ku dambeeyana wuxuu ku yaalaa meeshuu guriga abu taalib ku ooli jiray. kanna waa jabal abu qubays oo uu ka kordhisan yahay guriga boqorka sacuudiga maanta. taasna waa burju saaca oo dhinaceeda ay kacbadu ku taallo. makeena aan tagnay guriga nebi maxamed sala allahu calayhi waala alihi wasalam iyo hooyo khadiija bintu khuwaylid calayhi salaam ayna ku dhasheen 6 cunug oo uu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dhalay: zaynab, ruqaya, umu kulhuum iyo faatuma.
alqaasim iyo cabdullaahi oo la yidhaahdo atayib iyo ataahir oo saddex magac buu leeyahay cabdullaahi. gurigan waxaa kaloo loo yaqaanaa mawlidu faatima calayhi salaam, gurigay ku dhalatay faatima. gurigan waxaa 13 sano oo isku xigtay ku soo degayey malik jibriil oo waxyiga ugu keenayey nebi maxamed sal allahu alayh wasalam. waxaana ka dhisnaan jirtay qubad weyn oo la yidhaahdo qubatu alwaxyi. maanta boqorka sacuudiga fahd bin cabdilcasiis iyo muftigiisa indhahala oo aan waxba arag ibnu baaz waxay gurigaas sharafta leh ka dhigeen masquul ragga iyo haweenku ku xaaraan oo ku kaadiyaan meel kastoo adduunka ay ka yimaadaan. ilaahayna wuxuu qur-aanka ku yidhi yuriidu llaahu liyudhiba cankum arijza ahla albeyti wayutahirakum tathiira. boqorada sacuudigana waxay ka dhigeen masquul lagu xaaro oo lagu kaadiyo. dhinaca bidixda ah waxaa jirta masqusha haweenka. anaguna waxaan hadda geli doonaa haddii ilaahay idmo dhinaca ragga. halkaasuu ku yiilay guriga hooyo khadiijo calayhi asalaatu wassalaam. waxaad halkan musawirkan ka arkaysaa siday isugu dhow yihiin gurigu nebi maxamed sal alay waslm ku dhashay iyo guriguu ku koray oo ah guriga asayid abu aalib adeerkiisa sala allahu alayh wasalam, iyo guriga uu ku guursaday isagoo 25 sano jira hooyo khadiija calayhi asalaam. guriga abu aalibna wuxuu deganaa markuu gaaray 8 sano ilaa 25 sano. midkuu ku dhashayna sala allahu alayh wasalam ilaa uu ka gaaro 6 sano. waa kana calaamadii noo sheegaysay inay meeshaani tahay masqushii ragga, dowraad miyaha arijaal. dhinacan midigta ah waa la dhaqayaa oo la nadiifinayaa, dhinaca bidixdaan aadaynaa. meelahaasoo meesha lagu weyse qaato. musqulihiina waa kuwaana. إنا لله وإنا إليه راجعون. saasaa laga dhigay gurigii nebi maxamed sala allahu alayhi wala alih wasalam iyo hooyo khadiijo calayhi assalaam. carab iyo cajanba wasakhdooday halkan keenaan. إنا لله وإنا إليه راجعون. muslimiintu waa ka dembi la'yihiin
waxaa halkaas ka dhacay walaa taziru waasiratun wisra ukhraa kullu nafsin bimaa kasabat rahiina